Mid ka mid ah muuqaalada ugu xiisaha badnaa isla markaana ugu manfaca badnaa ee noloshaada ku soo mara. Haddii aad tahay qof graphic designer ah ama aad tahay qof content creator ah, sameeya muuqaalada, sawirada, dhisaanada noocyadooda kala duwan ama presentationska, muuqaalkan waxaa kugula wadaagi doonaa sida Canva Pro app aad si free ah ugu adeegsan kartid, weliba si lifetime ah. Dabcan Canva iskuma sheegayno waxa uu yahay, inta badanna dadkaan ka hadlaya si fiican bay uga dheragsan yihiin. Haddaba muuqaalkan step by step ula soco. Hadda waxaynu ku dhex jirnaa sida arkaysa dabcan waa website-ka Canva gudihiisa. Marka horeeto waxaanu ka sameysanaynaa account. Waxaad dhihi doontaa sign up. Kadib daaqadani markuu ku keeno saddexdan option midka doonaysid baa ku sameysan kartaa, ama saddexdan way with Google, with Facebook ama with email. Ama xitaa haddii options kale aad doonaysid halkan baa furi kartaa continue another way. Kadibna intaan oo dhan midka doonaysid baa ku sameysan kartaa. Marka hadda aniga aan doorto continue with Google. Kadib wuxuu ku soo saaraa Google accountska kala duwan ee browserkaaga kugu jira midka doonaysid baa markaa ku sameysane. Ama waxaad sameyn kartaa inaad imaatid website-kaani oo loo yaqaano Teamail. Kadibna wuxuu ku sameynaa ama uu ku generate gareynayaa temporary email oo markaa soo copy gareysan kartaa kadibna ku sameysan kartaa. Balse hadda aniga waxaan doonayaa inaan ku sameysto Google account-kayga caadiga. Marka waxaan dooranaa Google account-kayga. Dan waa la confirm gareynayaa in adiga tahay, waxaa leedahay continue. And here we go. Sida arkaysid markaasi Canva sidaas baynu ku sameysanay. Halkan wuxuu ku weydiinayaa what will you be using Canva for, maxaa u adeegsanee. For example hadda personal baa iska dooranaynaa. Halkanna waxaa iska leenahay maybe later. Waa arkaysaa markaa congratulation inaa markaa naloo sameeyey, yacni ama markaas aynu sameysanay account Canva. Balse waxaa arkaysaa account-geenu ma ahan free oo featureska inta ugu badan ama kuwa ugu muhiimsan waxay ku weydiin doonaan markaasi inaad lacag ku bixisid ama upgrading sameysid si halkan kaaga muuqanaysa. Sidee baynu qaab free ugu adeegsan karnaa? Simple waxaa imaanaya mar kaleeto browserkaaga Canva halkan kaaga furnaado. Danna search-gaaga waxaa ku qoraysaa yacni Bingo Canva website loo yaqaano. Kadibna waxaa leedahay enter. Waa kana sida halkan kaaga muuqanaysa website-kani waxaa la dhahaa bingotingo.com. asaga marka gudaha u soo gelaynaa. Halka ugu hooseysa tagi doontaa waxyaabahan oo dhan ads-ka markaa waa iska scroll gareynaysaa. Halkan waxaa sugaysaa inta uu markaas uu ku download gareynayo. Hadda 50 seconds baa ku dhiman. Always it takes 1 minute to download, so let us wait. And then sida arkaysa hadda waa lagu download gareeyay. Simple waxaanu dooranaynaa markaa si aanu ula degno download. Si aanu access markaa ugu yeelano inaynu adeegsano markaasi appka Canva isagoo free. Page-kana markuu ku keeno si aynu Canva Pro si free oo lifetime ugu adeegsano, kaliya waxaad dooran doontaa markaasi get here. Balse sida hadda kuu muuqanaysa wuxuu ku leeyahay waa update gareynaynaa 1 or 2 hour bay qaadanaysaa. Marka check later marka 1 hour ama 2 hour ay dhamaato kadib aad dib ugu soo laabanay. Marka waxaa helaysaa option-kan oo kaliya get here. Waxaana laga yaabaa sometimes hadda haddii aad VPN adeegsanaysid ama markaas ay yacni country-ga joogtidna way ku xiran tahay in automatically isla markiiba get here inuu kuu soo saaro oo aan update lagu dirin saacad iyo 2 qaadanay. Balse Soomaaliya oo kale haddii aad joogtid ama Kenya oo kale ama Ethiopia oo kale waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo 1 ilaa 2 hour baa sugaysaa. After that markii uu 1 hour ama 2 hour ka u dhamaado get baa ku soo laabanaya website-ka. Kadibna waxaad dooran doontaa get here. Automatically waxaa toos lagu geyn doonaa markaasi maxaa la yiraahdaa yacni website-ka Canva isagoo oo free ah, yacni feature kastana markaasi qaab free ah ku adeegsan kartid. Qaabkaas markaa haddii aad tahay designer aad u activate gareyn kartaa Canva Pro isla markaana si free oo lifetime ah ku adeegsan kartaa. Muuqaalkan intaas ku egaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen.